Honda Motor is Japan's third largest car and motorbike outfit. Honda is not going to sell you this car. And it could be dangerous. dad badan oo Japan ku nool waxay u ahayd maalin iska caadi ah 17 Noofambar 1960 waxay sidoo kale ahayd dhalashada Soichiro Honda kaasoo bedeli doona adduunka in ka badan hal mar. Honda aabihii wuxuu ahaa biroolaha haysta dukaan baaskiiladaha lagu hagaajiyo halka ay hooyadiina ku tali jirtay dharka. Aad bay qoyskoodu danyar u ahaayeen. Sidoo kalena 5 ka mid ah 8 walaal oo la dhashay Honda waxay ku dhinteen caruurnimo sababa caafimaad darro awgood. Sidee doontaba ha ahaatee markuu koray Honda wuxuu noqday mid aad u faysay qalabka iyo mashiinada. Wuxuu sidoo kale jeclaa inuu barto qaabka ay baabuurtu u shaqeeyaan kadib markuu arkay gaarigii u horeeyay noloshiisa kaasoo ahaa Ford Model T isagoo aad u yar. Uu ka daba cararay aadna ula tacajabay design-kiisa. Xasuustaas iyo urtiisa liida gaariga muu iloobin weligii. Haddaba waqtiyadan baaskiiladuhu aad bay caan u soo noqonayeen Japan dhexdeeda oo dhan. Waxayna macaamiishii bilaabeen inay line u soo galaan dukaankii cilad hagaajinta ee aabihii. Wuxuu Honda waqti aad u badan ku qaatay daawashada shaqada aabihii kadibna u tababaran jiray inuu isagu hagaajiyo. Honda wuxuu xataa bartay inuu alaabaha uu ku ciyaarayo ka dhex samaysto bir walbo geerishka iska dhex taala. Dhowr sano gudahood wuxuu Honda si joogta ah aabihii uga caawin jiray geerishka. Sidee doontaba ha ahaatee markay noqoto dhanka waxbarashada aad ayuu Honda ugu xumaa iskoolka. Noo xiisayn jirin waxa ay ku dhigayaan wuxuuna bedelkiisa jeclaa inuu ku soo noqdo geerishka aabihii. Marka maadaama uuna jirin xiiso waxbarasho aad bay u hooseeyeen dhibcihiisu. Waxa kalaaskoobii loo dhiibay reportkii dhibcahooga taasoo ahayd inay u geeyaan waalidiintooda si ay waalidiintoodu shaambada qoyska ugu soo dhajiyaan si ay u cadayso inay waalidiintu kaarka reportka arkeen. Haddaba Honda muu rabin inay waalidkiisu arkaan inuu dhacay oo uu niyad jabiyo marka wuxuu sameeyay shaambad kana sameeyay caaga beedalka ee baaskiiladaha kofarka u ah si uu macalinku markuu arko ugu qaatay inay waalidkiisu soo shaambadeeyeen. Wayna shaqaysay. Inkastoo Honda ugu dambeyntii la qabtay haddana aabihii tamuu cadhoon waxa uu sameeyay laakiin wuxuu aabihii ka xanaaqay inay shaqadiisu ahayd mid jilicsan si fududna lagu qabtay. Inkastoo uuna helin waxbarasho fiican haddana waxa koraysay xirfadda uu Honda ka helayay geerishka aabihii. Wuxuuna xiiso weyn u qabay mashiinada iyo engineerinka. Kadib 1917 markuu Honda ahaa 12 jir wuxuu Honda maqlay in pilot la yiraahdo Arthur Smith uu tijaabinayo awoodda duulimaad ee diyaaradda biplane. Marka wuxuu go'aansaday inuu ka amaahdo lacag yar sanduuqa geerishka kadibna qaatay mid ka mid ah baaskiiladihii yaala geerishka aabihii. Kadibna u safray 20 kiiloomitir si uu u tago xero military oo cirka ah si uu u daawado bandhiga. Markuu tagay meeshii wuxuu ogaaday inaanu haysan lacag ku filan si uu u iibsado tikidkii daawashada. Marka wuxuu go'aansaday inuu fuulo geed si uu uga daawado tijaabada. Aad buu Honda uga helay waxaana tani sii siyaadisay jacaylkii uu u qabay mashiinada iyo ikhtiraacida. Laakiin markuu gurigii ku soo noqday aabihii baa ogaaday wuxuu sameeyay. Laakiin nasiib wanaag halkii uu ka xanaaqi lahaa wuxuu aabihii aad uga helay dhiiranaanta hindisay wiilkiisa. Dabcan oo saxaaniyadiisa aad ayuu ugu faraxsanaa sida uu wiilkiisa u qadarinayo engineerinka sidiisoo kale. Marka uu iska dhaafay dhacdadii 1922 kadib markuu dhameeyay iskoolkii wuxuu Honda jaraa'idkii ka arkay xaysiis kaasoo ah shirkad bixisa adeegyada baabuurta oo la yiraahdo Shokai. Waxa ku qornaa xaysiiska in loo baahan yahay gacan yara ka shaqeeya hagaajinta baabuurta geerishka oo ku yaal Tokyo. Marka wuxuu is yiri marba haday shirkadu awoodo sameynta xaysiisyo noocan oo kale ah waxa laga yaabaa inay jiri karaan boosas shaqo barasho ah oo la siiyo dhalinyarta sidiisoo kale raba inay galaan ganacsigan. Markuu da'da ahaa 15 wuxuu go'aansaday inuu ka tago gurigoodii isagoo shaqo raadis ah wuxuuna u dhaqaaqay xagga Tokyo. Inuu ka baxo tuuladiisii yareed oo uu tago Tokyo oo mashquul iyo buuq badan waxay ahayd waayo aragnimo culus. Laakiin dareenkiisu wuu saxsanaa oo uu ka helay shaqadii ahayd shaqo baqashada geerishkii Shokai. Nasiib xumadiisa maalintii u horeysay shaqadiisa waxa loo diray shaqo ah nadiifinka masaxaadda wasakhda siwilka iyo inuu diyaariyo cuntada mulkiilaha. Waliba mararka qaar waxa loo diri jiray inuu hayo ilmo yar oo uu dhalay mulkiiluhu. Marka tani maahayn siduu ugu talagalay. Waliba lama siin jirin shaqo bartayaasha wax lacag ah waqtigaas. Marka waxa kaliya uu helayay waxay ahayd meel yar oo uu seexdo iyo xoogaa cunto ah. Laakiin wax yar kadib markuu galay shaqada waxa Tokyo ka dhacay dhul gariir kaasoo sababay inay makaanikiyadii ka tagaan shaqada si ay u hagaajistaan guryahooda. Marka waxa geerishkii ku yaraaday shaqaalihii. Ugu dambeyntii Honda uu helay fursadiisii iyadoo laga codsaday inuu buuxiyo booska makaaniga. Maadaama uu aad u shaqeeyay waxa booskiisii laga dhigay mid joogto ah. Honda wuxuu ceel u qabay barashada wuxuuna maalmihiisa ku qaadan jiray hagaajinta baabuurta iyo
mootooyinka kuwaas oo waqtigaas gaar u ahaa dabaqada sare. Waana halkan meesha uu Honda kula kulmay noocyada gaadiidka ee dhammaan shirkadaha kala duwan taasoo sii kordhisay aqoontiisa. Honda mar walba ahmiyad buu siin jiray uuna baari jiray baabuurta hagaajinta loogu xilsaaro. Waqtiyadiisa nasashadana wuxuu jaraa'idka ka akhrisan jiray wax walba ku saabsan baabuurta. Waqti badan kama xigin intuu Honda ku noqonayay mid aan ku koobnayn kaliya hagaajinta baabuurta oo wuxuu sidoo kale bilaabay inuu dib u nashqadeeyo spare parts-kan. Markay arkeen shaqada weyn ee uu Honda u qabanayay shirkadii, mid ka mid ah mulkiilayaasha oo la yiraahdo Ayuu ayaa xil iska saaray inuu baro Honda dhinaca ganacsiga iyo sidoo kalena qaybta farsamo ee shirkadda. Ayuu waxa uu ahaa macalinka ugu fiican ee Honda, waana isaga arda Honda bartay tartanka adduunka ee baabuurta. Haddaba 1923 wuxuu Ayuu go'aansaday inuu bilaabo soo saarka gaari tartan oo ay leeyihiin. Marka wuxuu ka codsaday Honda inuu ka caawiyo samayntiisa. Miisaankoodii labaad oo ay u bixiyeen The Curtis ayaa wuxuu 1924 ku guuleystay tartanka baabuurta ee Japan. Honda wuxuu ula socday injineer ahaan. Marka guushaas uu gaaray isagoo yar iyo inuu garab weyn ka yeesho dhismihiisaba waxay noqotay tareen aan weligii ilaawi doonin iyo mid uu weligiiba taba socon doono. markuu 20 jir noqday waxa Honda loogu yeedhay gudashada waajibaadkiisa ciidannimo laakiin markii la baaray caafimaadkiisa ayaa waxa la ogaaday inuu color blind yahay waana looga cudur daaray waajibaadkiisa in yar kadib 1928 macalinkiisii iyo milkiilihii Art Shokai ayaa u soo bandhigay fursad wuxuu u sheegay inuu Honda u furayo xarun Art Shokai oo u gaar ah wana furo Hamamatsu waa magaalo Japanese ah oo aad ugu dhow tuuladii uu ku dhashay Honda marka loo eego inuu Honda ku jiro da'diisii 20 waxay ahayd mas'uuliyad weyn in loo sameeyo dukaan u gaar ah oo lagu hagaajiyo baabuurta laakiin way cadeed inay maamulayaashiisu la dhaqeen sidaas darteedna Honda uu aqbalay xarunta Honda ayar bay u socotay markii hore waayo keligii baa qabanayay hawlahoo dhan waliba markay dadku baabuurtooda keenaan si loogu hagaajiyona qaar baa cashanayay markay arkaan da'yaraantiisa iyagoo u malaynaya inaanu khibrad lahayn laakiin markii dambe wuxuu aad ka samaystay sumcad wanaagsan bartankii 1930kiina wuxuu shaqaalaysiiyay tiim buuxa oo caawiya ugu dambeyn wuxuu Honda samaysanayay lacag fiican wuxuu shaqada ka soo bilaabay barasho bilaa lacag ah iyo ilaalinta ilmaha maamulihiisa wuxuu la isku bedelay maamulaha geerash weyn oo uu leeyahay maadaama uu noqday wiil yar oo taajir ahna Honda kama xishoon jirin inuu waqti fiican iska qaato waxa jira reportyo badan oo sheegaya isagoo waqti fiican iska la qaadanaya dumar badan iyo inuu xaflado badan qabsaday iyo waliba isagoo qaawani ku ciyaaraya arooskiisa Honda aad buu u dadaalay laakiin aad buu inta si badan u baashaalay siday doontaba ha ahaatee mararka qaar habeenada caawintiisu kuma dhammaan jirin si fiican wuxuu sidoo kale Honda jeclaa inuu galo tartanka baabuurta laakiin tanina sidoo kale masiibo xun bay ku dambeyn gaadhay markii uu 1936 Honda ku lug yeeshay shil baabuur oo xun waqtigii uu socday tartanka speedka ee Japan taasoo ku qasabtay inuu halkaas kaga haadho gabi ahaanba tartan dambe 3 bilood ayuu ku jiray dhakhtar wuxuu la yeeshay nabar joogta ah waxay dhaqaatiirtu sheegtay inuu nasiib fiicnaa hadiiba uu nolol kaga soo baxay waxay dhacdadani Honda u noqotay baraarujin uu ku toosiyo degdegii uu ku taajiray ayaa waxay u keentay inuu noqdo wiil yar oo wuxuu doona sameynaya oon fikireen laakiin dhowr mar oo uu sigtay ayaa ku kalifay inuu dib u qiimeeyo waxa uu runtii rabo wuxuuna gartay in kastoo tartankaasi baabuurta uu u socday si fiican haddana inaanu ku qanacsanayn hagaajinta baabuurta ayna tahay waqtigii waji cusub oo weyn uu gali lahaa wuxuu Honda fursado badan ka dhaxarkay warshadaha wuxuuna Art Shokai ka codsaday inuu geerashka uu iyaga u maamulo ka dhigo shirkad ka madax bannaan taas oo uu ku samaynayo bastoonada nasiib xumo Art Shokai gabi ahaanba ma jeclaan fikradan si fiican buu ganacsigu u socday lacag badan oo uu sameynayay marka xiiso uma qabin inay kaas joojiyaan oo ay galaan ganacsi cusub gaar ahaan maadaama ay samaynta biro cusub halkii ay ka hagaajin lahaayeen ay u egtahay mid riski ah kharash badanna ku baxayo siday doontaba ha ahaatee Honda way ka go'nayd inuu raaco fishankan cusub marka isaga iyo inay saaxiibihiin ayaa go'aansaday inay business wada samaystaan iyagoo samaystay ganacsi cusub oo u gaar ah oo loo bixiyay Tokai Seiki Heavy Industry markii hore wuxuu Honda maalintii ka shaqayn jiray geerashkiisa habeenkiina ka shaqayn jiray shirkadiisan cusub ee soo saarta qalabka baabuurta isagoo isku dayay inuu sameeyo bastoonada aad bay u daalin jirtay qabashada labada shaqo oo muu heli jirin hurdo ku filan wuxuu sidoo kale habeenkii qaadan jiray kalaasyo si uu u sii horumariyo fahankiisa ku saabsan qaabka ay u shaqeeyaan farsamooyinka biruhu wuxuuna 2 sano u shaqeeyay si bilaa nasasho ah
ilaa uu ka sameeyay bastoon dhisaankiisu aad u yahay casri sanadkii 1939 wuxuu markan waajibaadkiisii art joke ay ku wareejiyay ardaydiisii bilaabayna inuu gabi ahaanba diiradda saaro shirkadiisan cusub ee wax soo saarta waxayna bilaabeen soo saarkii bastoonada waana markii u horeysay in muddo ah uu runtii Honda markale xiiso u yeeshay shaqadiisii laakiin xiisahaasi wuu cimri gaabnaa oo in yar kadib waxa soo baxay caqabado dhinaca soo saarka ah tusaale ahaan dalab ayaa uga yimid Toyota laakiin kumanaankii bastoon ay ka dalbadeen Honda shirkadiisa 3 mid oo keliya ka gudbay heerka tayada sare ee Toyota dib u celin weyn bay ahayd laakiin Honda wuxuu go'aansaday inuu booqdo dhammaan jaamacadaha iyo warshadaha ku yaala Japan si uu u sii fahmo habka soo saarista una horumariyo xirfadiisa ugu dambeyntii wuu bartay aqoon iyo xirfad ku filan si uu u soo saaro bastoono kuwaas oo ka gudbay heerkii tayada sare ee Toyota waliba si kasii fiican wuxuu Honda helay qaab uu ku ballaarinayo soo saarkooda iyagoo isticmaalaya process automatic ah taasoo ka dhigan inuu xataa shaqaalahooga bilaa xirfada ahi soo saari karo waxay tani ka dhignayd inuu ku soo saari karo jumlad waliba qiimo aad u jaban waxay dalabaadkii u koreen si xawli ah marka maadaama aan Honda dalabaadkaas oo dhan ku dhameystiri karin warshadiisa wuxuu furay warshad kale si uu u ballaariyo soo saarka bastoonada nasiib xumo isla markii uu ganacsiga Honda kor u kacay waxay Japan u diyaar garoobaysay dagaal markay Japan gashay dagaalkii labaad ee adduunka 1941 in badan oo kamid ah shaqaalihii Honda ayaa loo yeeray si ay u galaan ciidanka taas oo ka banaysay boosas badan oo shaqo warshadii Honda wuxuu sidoo kale dagaalku keenay gaabis xagga badeecadaha ah wuxuuna Honda dib ku qabay helida qalabkii soo saarka markay diyaaradaha cadowga cirka ka soo daadiyaan taangiyada shidaalka wuxuu Honda shaqaalihiisa ku amri jiray inay raadiyaan foostooyinka si loogu isticmaalo soo saarka ilaa xadkaas aanu u baahnaa supply-ga 1944 waxay Japan u muuqatay mid ku guuldareysanaysa dagaalka kadib markay bambo ku dhacday mid kamid ah warshadihii Hondana waxay u ekeyd inuu waayayo ganacsigiisii waxa iyaduna qadar sanad kadibna waxa warshadii kale Honda burburiyay dhulgariir niyad jab weyn bay ahayd in wixii uu sanado dhan ku dhisayay uu isku bedelo burbur iyadoo markeedii horeba shirkadu la tacaalaysay dhibaatooyinka dagaalka ayaa waxay tani u qoyskeysay shirkadiisii uu ka kacay ganacsigu marka wuxuu Honda haraagay warshadiisa ka iibiyay Toyota waxa dagaalkii kadib dhacay baahi weyn xagga shidaalka isku socodka gaadiidka dadweynuhu wuxuu waqtigan ku koobnaa baaskiiladaha waxay dadku u baahnaayeen qaab fudud sidoo kalena jaban oo ay ku gaaraan meelaha ay rabaan iyadoo uu shidaalku yar yahay marka wuxuu Honda helay fikrad wuxuu injineer ku xiray baaskiiladiisii taasoo markiiba soo kiidatay dadkii magaalada isagoo dareensan inay tan xal fiican u noqon karto dhibaatooyinka wadankiisa wuxuu Honda aasaasay machadka baaritaanka farsamada ee Honda 1946 isagoo isticmaalaya lacagtii uga soo iibinta warshadiisii bastoonada qorshaha arintani wuxuu ahaa si uu xal ugu helo sida ugu fiican ee loo sameyn karo mootooyinka isagoo isticmaalaya biro iyo mashiino uu Honda ka helay qalabka militariga wuxuu ku guuleystay inuu sameeyo mootooyin shaqaynaya kuwaasoo isla markiiba qabsaday Japan in yar kadibna waxa ku soo batay dalabaadkii waxaana ka dhamaaday injiinadii uu soo urursan jiray marka wuxuu Honda bilaabay sameynta injiino u gaar ah haddaba si uu u ballaariyo soo saarka mootooyinka si uu u dhammaystiro dalabaadka wuxuu Honda u baahday lacag dheeraad ah oo uu ku maalgeliyo soo saarka nasiib xumana dhaqaale xumada ka jirtay wadanka uu dagaalku keenay dartii si fudud laguma helin maalgashi laakiin sidii caadada ahayd wuxuu Honda helay xal waxa laga soo sheegaa inuu waraaqo u qoray 18 oo mulkiilayaashii dukaanada baaskiiladaha isagoo ku sharaxaya fikradan kana codsaday inay maalgashadaan fikirkiisan cusub ee dhisaanka mootooyinka ah waxay 3,000 oo kamid ah mulkiilayaashan dukaanada baaskiiladuhu ugu soo jawaabeen inay maalgashanayaan mootooyinka Honda marka Honda uu ku soo noqday businesskii waxa Honda Motors Co la aasaasay 1948 si ay u soo saarto mootooyin qaadkoodu yar yahay iyadoo uu hadafkuna yahay in la soo saaro mootooyin uu jaban yahay iibkoodu kuwaasoo dadka Japan ka caawin kara inay si fudud ugu safraan wuxuu sidoo kale Honda la shuraakoobay Takeo Fujisawa kaasoo siiyay shirkadda investment dheeraada sidoo kalena ahaa howlwade ganacsi iyo khabiir weyn taasoo u ogolaatay Honda inuu waqti badan geliyo dhinaca soo saarka ee ganacsiga mootadii u horeysay Honda ee si buuxda u soo baxday waxay ahayd D-Type taasoo u taagnayd Dream inkastay aad u weyneed una cuslayd haddana wuxuu Honda ku guuleystay sameynta model cusub oo fiican oo la magac baxay Supercup kaasoo fududa yaraa kana ammaan badnaa degdeg buu modelkaasi u dhaqaaqay wadankoo dhan buuna dalabkoodii ka kala yimid kadib waxay shirkadii Honda u jeesatay gelitaanka suuqa Mareykanka laakiin ka hor 1960 aragtida ay Ameerikaanku ka aaminsanaayeen wadashada mootooyinku waxay ahayd inay tahay mid qallafsan bila shuruuc ah oo aanay ammaan ahayn wadashadoodu marka si ay u bedesho aragtidan waxay shirkadii Honda samaysay olole xaysiis oo aad u dhaqaaqay wuxuuna hal
halkudhigoodu ahaa dadka ugu fiican waxay wataan Honda, waxayna ku dareen intaas samaynta design fudud oo ku dhiirigelinaya qoysaska iyo dadka yaryar si ay u bedelaan aragtiyahoodii hore, sidaasna ay mootooyinkooda ku gaadhaan suuq cusub. Natiijadii arrintaasina waxay keentay in 1964 labadii mooto ee lagu iibiyo Mareykanka mid ka mid ahi inay noqoto Honda. In yar kadibna mootooyinkii fududaa waxay qabsadeen dhammaan wadooyinkii Mareykanka. Dhammaadkii 1960-maadkana waxay Honda noqotay shirkadda mootooyinka ugu weyn adduunka, iyagoo soo saaraya ku dhowaad milyan xabo bishii. Xaqiiqdii weli ilaa maanta Honda waa shirkadda ugu weyn ee soo saarta mootooyinka. Ma aha in Honda kaliya mid lacag samaynta oon guul ka gaadhay, waxay sidoo kale ku guulaysteen tartamada. 1966 waxay Honda Motors la hoydeen guusha samaynta 5 nooc ee mootooyinka heerka sare ah, iyagoo noqday tiimka ugu dhibcaha badan seasonka. Waxay markan mootooyinka Honda ku guulaysteen dhammaan tartan walba jiray waqtigaas. Dhinac walba mootooyinka Honda guul ka sameeyeen, laakiin soo jiro Honda waxa jiray habriyo oo una wali rumayn. Ugu dambeynna waxaa la gaaray waqtigii uu hamigiisii iyo mashruuciisii ugu weynaa uu qaban lahaa. ilaa markii uu yaraantiisii arkay gaadhigii u horreeyay noloshiisa, wuxuu Honda jeclaa inuu sameeyo gaadhi. Marka loo eego duruufaha uu ku soo bilaabayna, wuxuu si gaar ah u jeclaa fikirka ah inuu sameeyo gaadhi tayo leh oo jaban si ay cid walba gaadhi u yeelan karto. Siday doontaba ha ahaatee, waxay cid walba u sheegi jirtay maadaama uu guusha ka helay samaynta mootooyinka inuu intaas ku eegtaado, weliba maadaama uu tartan badani ka jiro suuqa baabuurta, gaar ahaan suuqa Mareykanka kaasay shirkadaha baabuurta hogaaminayeen. Laakiin wuxuu Honda ahaa mid mar walba u bareedha khatarta, maadaamana uu qabsaday suuqii laba taayirleyda, diyaar buu u ahaa inuu galo 4 taayir. Gaadhigii u horreeyay shirkadda Honda isku daydayna wuxuu ahaa T36 truck, taasoo iib galay 1963, laakiin caan muu ahayn, si fiicanna looma iibsan. Laakiin sidii caadada ahayd, markuu dib u dhac ku yimaado Honda, waxay uga dhignayd inuu dhinac kale ku eego. Haddaba bilowgii 70-aadii waxaa jiray dhaqdhaqaaq kacdoon dadweyne kuwaasoo ka walaacsan tayada hawada iyo cimilada. Waxay tani sababtay in magaalooyinkii Mareykanku soo saaraan sharci lagu nadiifinayo hawada, kaasoo qasbaya in la adkeeyo shuruucda gaadiidka. Markiiba shirkadihii waaweynaayo dhani apiil bay ka qaateen, iyagoo sheegaya inay shuruucdan cusub yihiin kuwo qayru macquul ah. Halka uu si fudud Honda uga yiri waan u helayaa xal, wuxuuna u kurgalay inuu sameeyo injin casri ah kaasoo ka gudbaya imtixaanada nadaafadda hawada. Waxaa injinkii loo bixiyay Compound Vortex Controlled Composition Engine. weliba muu noqon mid kaliya cimilada uun u fiican, wuxuu noqday mid dadkii u ogolaanaya inay ugu safraan meelo fog iyagoo isticmaalaya shidaal yar. Marka halka ay shirkadii ugu waaweynaa suuqa baabuurta Mareykanku uga shirayeen siday sharcigan u baabiin lahaayeen, wuxuu Honda qaaday tallaabo uu xal ku helayo. Wuxuu Honda laftiisu mar dambe yidhi, markay Kongaresku keenaan sharci cusub, waxaan shaqaalaysiinaa 50 injineero cusub. Shirkadaha kalena waa GM, waxay shaqo geliyaan 50 lawyer. 1977 wuxuu sameeyey nooca Honda Civic, kaasoo noqday gaadhigii u horreeyay ee ku shaqaynaya injinkan cusub ee CVCC. gaadhigan rakaabka ah ee fudud, meel walbana lagu tegayo isagoo aan shidaal badanna u baahnayn, wuxuu ahaa jawaabta saxda ah ee masiibooyinkii saliidda sanadkii 1973, taasoo uu kor u kacay shidaalku. Honda Civic qarashkiisa isticmaalka shidaalku wuu yaraa, isku hallayna wuu lahaa, wuxuuna ahaa gaadhi yimid waqtigii ku munaasibka ahaa. In yar kadibna wuxuu gaadhigii Honda Civic ka mid noqon doonaa baabuurta ugu caansan adduunka. Markuu iibtii Honda Civic u dhaafay 1 milyan, waxay Honda mar kale soo bandhigtay noocii Accord. wuxuu modelkani ahaa mid ka habaysan oo loogu talagalay inuu soo jiito dabaqada dhexe, kuwaasoo raba dhisaan qurux badan iyo qiimo macquul ah. hadalhayntii dadku waxay keentay inay Honda yeelato sumcad xagga isku hallaynta ah. kor bay u socotay iibintu, waxayna Honda ka mid noqotay hoggaanka shirkadaha baabuurta. markuu modelkii Accord caan noqday, waxay Honda sidoo kale kalsooni ku gashay suuqii baabuurta luxury-ga ama raaxada, iyagoo soo bandhigay Mareykanka barnaamijkii Acura 1986, kaasoo isna iib badan ka sameeyey Mareykanka iyo Jabaanba. waxay iminka Honda haysataa noocyo kala duwan oo u soo bandhigaan macaamiishooda kala duwan, kuwaasoo si fiican loo iibsanayo. sidaas darteed 1980 waxay Honda noqotay shirkadda saddexaad ee ugu weyn kuwa baabuurta sameeya adduunka. inkastoo dhintay aasaasihii, haddana Honda Motors hore u sii watay qabsashadii suuqa Mareykanka, iyadoo keentay nidaamo waaweyn, baabuur horumarsan yahay designkooda iyo marketing cusub. dabcan ilaa maanta Honda Motors waxay ka mid tahay hoggaanka shirkadaha baabuurta soo saara adduunka. waxay sidoo kale isku ballaariyeen dhammaan noocyada kala duwan ee productiska, laga bilaabo diyaaradaha ilaa robotyada. waa cajiib runtii inay Honda noloshiisa ku bilaabantay mugdi iyo xiisayn yar oo qalabka iyo mashiinada ah, laakiin Honda wuu ogaa wuxuu rabo daacad buuna u noqday. ficil buu sameeyey, cadaadis buuna ku dareeyay marka arrimuhu siduu raba noqon waayaan. wuxuu fahmay in haddii uu sameeyo product muhiim ah inay dadku iibsanayaan, wuxuuna u shaqeeyey si bilaa nasiimo ah si uu riyadaas run uga dhigo.